السلام عليكم سدوات صاحبيال waxaad ku soo dhawaataan 10 aad u xiiso badan oo ku saabsan hadal jeedin uu hadda ka hor uu sameeyay ra'iisul wasaarihii hore ee wadanka Soomaaliya Xasan Cali Khayre uuna ka jeediyay xarunta qaramada midoobay warkaas oo runtii aad u xiiso badan ereyo cusubna aad ka faa'iido doonto hadii ay booyna uu ka raali noqdo insha warku waa xilli hore ayuu ahaa warku laakiin muhiimadeenu ma ahan siyaasad iyo wax la xiriira waa inuu kaliya aynu fahamno ereyada looga hadlo meediyaha idaacadaha iyo TV-yada haddaba markii sharxaadda aan dhameeyo isagoo ra'iisul wasaarihii hore uu hadlayo oo Englishka uu ku hadlayo ayaa daawad doontaa insha Allah waxaan ka rajaynayaa inaad kanaalka aad subscribe gareyso muuqaalkana aad like gareyso si asxaab fara badan uu gaaro qaybta comments-kana aad inoogu soo qorto warkan xiisaha badan ee ereyadii aad ka faa'iiday soo dhawaada saaxiibayaal wahaga Somali Prime Minister ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Khayras speech hadalkii Khayre at uu ka jeediyay United Nations qaramada midoobay wuxuu hadalkiisa ku bilaabayaa Mr. Secretary General of the United Nations honorable delegates excellencies ladies and gentlemen it's an honor to address the 72nd session of the United Nations General Assembly. I bring you warm greetings and good wishes from our President, His Excellency Mohammed Abdullahi Mohammed Farmajo, and the entire government and people of the Federal Republic of Somalia. The Somali people have for many years been the victims of war, famine, and poverty, which has seen them displaced internally, while others made the perilous journey abroad. wuxuu leeyahay Mr. Secretary General of the United Nations mudane xoghaye guud ee qaramada midoobay secretary waa xoghaye general waa guud United Nations waa qaramada midoobay good honorable delegates wafuda sharafta leh delegates waa wafud excellencies waxaa loo adeegsadaa eragan dadka madaxda markii loo yeerayo for example markii muslimiintu markii qof sharfayaan waxay yiraahdeen fadilatu hebel fadilatu Sheikh Mustafa Haji sidaas oo kale baynu dhahnaa marka excellencies waa fadilatu ayuu dhigmaa ladies and gentlemen mudanayaal iyo marwooyin it's an honor sharaf ay ii tahay to address inaan ka hadlo the 72nd session kalfadhigii 72 erga session waa kalfadhi the 72nd session of the United Nations ee qaramada midoobay General Assembly ee isu imaatinka guud general waa guud assembly waa isu imaatin ama shir I bring you waxaan idin wadaa buu leeyahay warm greetings salaan diiran baan aan idin wadaa and good wishes iyo rajoojin wanaagsan from waxaana idin kaga wadaa our president madaxweynaheena His Excellency Mohammed Abdullahi Mohammed Farmajo and the entire government iyo guud ahaan dawladda and people iyo dadka of the Federal Republic of Somalia ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. The Somali people dadka Soomaaliyeed have for many years been waxay ahaayeen sanado fara badan the victims dhibanayaasha of war ee dagaalka famine macluusha and poverty iyo saboolnimada ama faqiirtinimada which has seen taasoo ay u muuqdeen displaced in laga barakiciyay internally gudaha wadanka ay ku barakiceen qaarkood while halka others kuwa kalena made ay sameeyeen the perilous journey safar qatar ah erga perilous waa qatar ah safarkaas oo ay u aadeen abroad dibadda beedka xiga waxa uu ku bilaabanayaa Mr. President mudane madaxweyne the Somali people dadka Soomaaliyeed have embraced waxa ay qaateen a new dawn waa cusub ay qaateen towards dhanka iyo peace nabadda and prosperity iyo barwaaqada Federal Government of Somalia dawladda Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya will continue waxay sii wadi doontaa to work with inay la shaqeyso the Security Council golaha amaanka waa Security Council ayaa la yiraahdaa council waa golaha towards dhanka ayo inay kala shaqeyso lifting ka qaaditaanka the armies embargo cunaqabateynta dhanka ciidanka embargo waa cunaqabateyn imposed against taasoo ka dhan ah in lagu soo rogay imposed waa ku soo rogid Soomaaliya lagu soo rogay
warkani waa war hore ee waa markii khayra uu ahaa ra'iisul wasaaraha dabcan hadda ma ahan hore inaad sidaad u fahamsantiin baan rajaynayaa wuxuu kaloo leeyahay Soomaaliya has recently taken Soomaaliya waxay dhawaanahan ay qaaday recently dhawaanahan taken ay qaaday bold steps talaabo geesinimo leh bold geesinimo leh to address oo ay kaga hadlayso corruption musuqmaasuqa. The leadership hogaanka of my nation ayuu leeyahay ee qarankayga has also wuxuu sidoo kale reiterated uu ku celceliyay it is zero tolerance dulqaadka uu u dulqaadanayo corruptionka it is zero tolerance dulqaadkiisa eberka ah to corruption ee corruptionka ama musuqmaasuqa dulqaadka inuu hayno waa zero buu leeyahay oo macnaheedu tahay wax dulqaad uma hayno. Thank you mahadsanidin and may Allah bless you Allah bless all you dhamaantiina Allah idin barakeeyo. inta ayaan ku soo afmeeraya sharxaadii waxaan filayaa inaad eray cusub aad ka faa'iiday haddii aad ay jiraan qaybta commentiga inoogu soo qor haatana ku soo dhawaad isagoo daawasho ah balanteenu waa guul. Mr. Secretary General of the United Nations, honorable delegates, excellencies, ladies and gentlemen. It is an honor to address the 72nd session of the United Nations General Assembly. I bring you warm greetings and good wishes from our President, His Excellency Mohammed Abdullahi Mohammed Farmajo, and the entire government and people of the Republic of Somalia. The Somali people have for many years been a victim of war, famine, and poverty, which has seen them displaced internally, while others made the perilous journey abroad. Mr. President, the Somali people have embraced a new dawn towards peace and prosperity. The federal government of Somalia will continue to work with the Security Council towards lifting the arms embargo imposed against Somalia. Somalia has recently taken bold steps to address corruption. The leadership of my nation has also reiterated its zero tolerance to corruption. Thank you, and may Allah bless you all.